maxamed cabdirasaaq maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya kadib markii uu ka soo laabtay wadanka Djibouti oo asaga iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay uga qayb galeen shirka IGAD ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabihii looga hadlay shirkaasi iyo waliba Soomaaliya dhankeeda iyo dhanka Kenya waxa laga yeelayo haddaba ayaan soo gudbiyay marka hore bal shirkiisa jaraa'id ka bacdina falanqaynta ayaan sii wadi doonaa galab wanaagsan waxaan anigoo kamid ahaa wafdigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kaga soo laabanay shir howleed safar howleed aan ku tagnay dalka Djibouti hadda muddo yar ka hor waxaanan halkaas kaga qayb galnay shirkii 38aad aan caadiga ahayn ay ku lahaayeen wadamada IGAD madaxweynayaashooda shirka wuxuu ahaa hal maalin wuxuuna u bilowday qaab laba geesoodyo ah oo marba ay laba dal gooni isu arkayeen kadibna iyagoo group ah oo kale ay isu arkeen halkaas oo looga sii gudbay shirka qaybtiisii weynaa ama plenary-ga ahayd shirarkaas laba geesoodyada ah waxaa lagu xaliyey arrimo badan oo culus oo ugu darnaa inta aan la gaarin shirka weyn dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas hase yeeshee madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo is-afgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalino talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda Soomaaliya taas waa ay ogolaatay laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya ka ashkatoonaysay waxay ahaayeen dhowr arrimood qaarkoodna aan idin kala hadli karno qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaas ay wali socoto tan ugu culus oo ugu muhiimsan uguna maaragtay degdegta badan waxay ahayd mid ku saabsan jabhadaha ama jabhadda lagu soo abaabulay dalka Kenya dhexdiisa sida aan anagu qabno oo borderka dhinaciisa kale xuduudda dhinaceeda kale ku abaabulan taasoo IGAD ay go'aan ku gaartay in guddi xaqiiqo raadin ah loo saaro guddigaasna uu arrinkaas soo baaro arrimaha kaleeto oo ay Soomaaliya tabanayso waa wax lagu xallin karo midba siday maaragtay u kala muhiimad weyn yihiin oo lagu xallin doono diplomatic channels ama qaab diblomaasiyadeed u socon doono laakiin arrinkaas ku saabsan xuduudda iyo xiisadda ka taagan taas waxay ahayd midaan rabnay in marka hore galab wanaagsan intaasi haddii aan ku dhaafno shirkaasi jaraa'id ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo ka hadlayay shirkii IGAD iyo waxyaabaha ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala soo kulantay wadankaasi Djibouti cali cabdibaab markale soo dhawow hadalka waa dhageysatay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya shirkii IGAD iyo qodobadii ka soo baxayna waa la socotay markaad eegtid Soomaaliya iyo waxyaabaha ay shirkaasi kala soo kulantay maxaa laga fahmi karaa xilligaas بسم الله
والسلام كرسن تي في أديك داو إذاياش أمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب بركو رئيس أشتكى واحد جيستي دولة الصومالية إذا أن أقنهاي بدو صدح بلاد بهرب يعني إن أي سنجرين علاقات سفارات إلا بدل دل الصومالية يكينيا مدة يعني كسي من سجاشر معلومات بهرب السفيرة إكل جوجين ودمضة أن أقنهاي أيها حدنا يعني واحد عليه إن سببليك يعني دولة الصومالية وشاعسو أو هذا يعني علاقات كان وجهنا كينيا شركة إيجاد متقانا أن عادي أهلنا واحد دلبتي دولة الصومالية يدو أشتكى تجود بينيسو دولة كينيا هساهاتي إن دولة الصومالية واحد مودا إن ويري هاي بسال كذا سياسة صوبتها إن marka adiga aad yani ashtaka geynaysid ama yani aad dal kale aad la doodaysid waxa loo baahan yahay waxyaabaha aad ku doodaysid in ay yihiin waxyaabo aan adiga bari ku soo noqonaynin ama laga baaraan degay oo mataqana si digestively si loo calaaliyo kadib yani meel lala tago ayay ahayd marka sababtoo ay dawladdu waxa ugu weyn ee hoosta aga xariiqna wuxuu ahaa jabhado ayaana lagu soo kiciyay oo lagu soo tababaraya Kenya iyo waxa jooga ciidamo Kenyaan oo aan ahayn AMISOM aan ahayn ayaa jooga dalka waa labada qodob ugu xasaasiyeed yani ay dawladda ku doodaysay balse dawladda waxa ay halmaantay in yani Ethiopia ay ka joogaan ciidamo aan ahayn AMISOM oo ah non AMISOM ah in ay ka joogaan dalka Soomaaliya ay joogaan ay halmaantay waxa ay halmaantay haddii ciidamada Kenya ay shacab Soomaaliya dilayaan waxa ay halmaantay in ciidamada Ethiopia ay dilayaan guryahooda ay ku dilayaan guryahooda dhaxdiisa ee shacab Soomaaliyeed sidii ka dhacday magaalada Baydhabo kale marka waxa ay ku doodayaan dibadda waxa uu sheegay in wadamada IGAD ay cadaadis saareen sida aad sheegtay oo la wada ogsoon yahayna Soomaaliya iyada ayaa dalbatay shirkan dacwada u gudbisay gudoomiyaha shir gudoonka shirka oo ah ra'iisul wasaaraha wadanka Suudaan marka dacwadii iyo arintii iyo Soomaaliya ay ka gudbisay Kenya in wadamadii IGAD ay cadaadis saaraan sida hadda wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay maxaa sababay waxa sababay Maxamed intii uu san furmin shirkii planeriga ahaa oo weynaa intuu san furmin waxa dhacay shirar duceedyo ah ayaa dhacay dawladda Soomaaliya looga dhageysanayay waxa ay wadato looga dhageysanayay marka wixii ay wadatay markii ay noqdaan wax mataqaana aan yani wax buuran uusan ahayn yani waxa aad ku andacoonaysid ma noqon karo ajandihiina laguma darin xataa ajandihii laguma darin communiqueygii soo baxay laguma darin marka taas waxay keenaysaa waxa ay tusaysaa lack of mataqaana maturity inay tahay biseel la'aan siyaasadeed in Soomaaliya ay meesha yani kula tagtay ayna tusaysaa because Soomaaliya arrinta ku kaliftay waxa waaye caadifadaas oo aan ognahay in ay salka ku hayso gobolka Gado ay salka ku haysaa taas ayaana mataqaana dawladda iyadoo aan ka munaaqishoonin iyadoo mataqaana aniga ma aqaan yani haddii ay ka wada hadleen xataa mataqaana golihii wasiirada laga wada hadlay waxay ahayd war waxa la geenaya meesha ashtakada inay ahaato mid dhadhan leh oo dadka soo jiidan karto oo mataqaana lagugu garaabi karo inay noqoto laakiin haddii wixii meesha aan la tagtay aysan ahayn wax la garaawshiye leh haddaysan ahayn aad meesha la tagtay adan maxaan de waa lagugu soo celinaa waa lagugu cadaadinaa inaad edab yeelatid marka qodobada oo shirka looga hadlay iyo waxyaabihii ka soo baxay marka la eego iyo doorka Soomaaliya muxuu noqon karaa horta waxa ugu muhiimsanaa oo ka soo baxay wuxuu ahaa in doorashada yani ay waqtigeeda ku dhacdo heshiiskii yani Dhuusamareeb iyo mataqaana kii September oo magaalada Muqdisho in yani qodobadaasi la raaco la helo doorasho wada ogol ah in la helo inay dhacdo ayaa ugu muhiimsanaa wax laga hadlay oo communiqueega ku soo baxay waxay ahayd in wadanka uu ka dhaco xilligii loogu talagalay doorasho doorashadaas oo ah mid wada ogol ah inay noqoto ayay ahayd wax ugu muhiimsan oo meesha ka soo baxay waa tahay marka aad eegtid marka qodobadii laga soo saaray kuma jirto xiriirkii Kenya Soomaaliya ay jirtay
marka Kenya iyo Soomaaliya maadaama Soomaaliya xiriirkii jirtay haddana wasiirka arrimaha dibadda hadalkiisa waxaa ku jirtay in arrimaha diblomaasiyadda iyo lagu xaliyo arrintaasi marka xiriirkii diblomaasiyadda kala dhaxeeyay Soomaaliya waa ay jirtay Kenya yaa ka shaqeynaya arrintaas oo wakiil uga noqonaya Soomaaliya heer wasiir inay noqoto oo lasoo bilaabo waa suurtagal laakiin waxa waaye waxa ku horeeya waxaasoo dhan ciddii markii hore goysay ayaa laga rabaa haddana inay bilowdo soo celintii inay iyada bilowdo waxaa laga rabaa ciddii horta goysay xiriirka ciddii goysay ilan kenya xiriir ma goynay Soomaaliya ayaa goysay xiriirkii hadda iyadaa laga rabaa inay bilowdo soo celintii xiriirka sida nidaamku yahay marka waxaa la filaya waxay tahay in xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya uu mar kale dib u bilowdo oo wada shaqaynta ay bilaabato laakiin waqtiga uu yahay ilaa iyo hadda yani ama beri ama saada ma dhihi karno laakiin waa in process la bilaabaa waa tahay wasiirku waxa uu sheegay kale in arrinta la isla soo qaaday oo guddi igad ah loo saarayo in Kenya ay tababarto ama ay wado olole ka dhan ah Soomaaliya oo maleeshiyaad iyo jamhadaha halkaasi ay ka soo abaabulayso qodobkaasi marka aad eegtid miyuusan noqon karin qodob